ها كسو دوادا معك إسبين waxaan ku jirnaa farsamooyinkii ama buuggii aan u talagalnay qanaacada macaamiisha iyo sida macaamiisha loo qanciyo waxaan soo gaarnay doorka ama supervisor waa maxay waxaan kala ka soo hadalnay responsibility-ga ama mas'uuliyadda supervisor kuleeyahay maxaa kamida oo shalay ugu dambeysay maanta waxaan ka hadlaynaa insha Allah haddii la yiraahdo doorka qofka supervisor-ka ah waa maxay ayaan ka hadlaynaa doorka qofka supervisor-ka ah horta door markii qofkan doorka oo ciyaaro roolka oo ciyaaro ayaa la yiraahdaa qofka supervisor-ka ah horta marka koowaad doorkiisu waxa waaye wuxuu horta oo ku siman yahay shaqooyinka day to day activity-ga ah inuu nidaamiyo inuu macallin u noqdo shaqaalaha ka hooseeya inuu macallin u noqdo waxa kale oo la rabaa inuu la taliyo u noqdo dadka oo shaqaalaha ah oo xafiiska shaqeeya xafiiska magacaaban waxa la rabaa inuu la taliyo u noqdo waxa kale oo la rabaa in uu yani information inuu siiyo warbiximo inuu siiyo shaqaalaha oo horumariye ayaa laga wadaa macnaha taas oo kale waxa waaye tusaale qofkan shaqaalaha ah qof ninka supervisor-ka ah waxa laga yaabaa ama gabadha supervisor-da ah waxa laga yaabaa in information ay soo hesho oo ay ka soo hesho xagga maamulka sababtoo ah iyada waxay u dhaxaysaa maamulkii iyo shaqaalihii marka maxaa laga rabaa waxa laga rabaa qofka inuu yahay developer inuu yahay oo dadka shaqaalaha ah oo horumariyo information inuu siiyo waxa laga yaabaa dalacsiimo hadii jiraan mushaaraadka la kordhin rabo hadii jiraan waxyaalahaas oo dhan waxa la rabaa in laga hadlo oo la yiraahdo dadkan hoos joogahaaga ah in information-ka la gaarsiiyo waxa kale oo la rabaa horumariyaha waxa kale oo kamida in qofka shaqaalaha hadii uusan computer-ka ku fiicnaan hadii uu shaqada uu qabanayo nooc loo qabanayo oo isku fiicnaan hadii uu tababar u baahan yahay hadii bahalka cudurdaar kale uu jiro waxyaalahaas oo dhan waxa la rabaa in ka horumariyaa la rabaa oo si fiican ula taliyo computer iska dhis hadaa rabto inaad horumarto school dhigo hadaa rabto inaad horumarto jaamacad ka soo bax waxyaalahaas inuu yiraahdo laga rabaa markastana waxa la rabaa inuu safiir uga yahay maamulkii oo shaqaalaha oo qof warbixin yani bixi kara inuu yahay waxa kale oo la rabaa doorkiisa waxa kale oo kamid ah shaqada shaqaalaha hadii ay ku badan tahay tusaale ahaan qof shaqaalaha shaqo badan haya hadii ay ku badan tahay qofka shaqaalaha ah shaqadu ay ku badan tahay waxa la rabaa inuu director u sameeyo inuu hago oo macnaha sida shaqadaas loo dhameey lahaa goolkaas lagu guuleysan lahaa inuu hagaa la rabaa ama waxa la rabaa inuu tababaro oo qofkan shaqadii meesha u socotay qaabka u socoto oo u tababaro waxa kale oo laga rabaa inuu sameeyo environment fiican inuu dhiso yani environment fiican inuu dhiso oo tusaale ahaan inuu qofkaani shaqaalaha intuu ku shaqeynayo ma 5 ma 2 ma 10 ma 20 ma 100 ma 15 ah waxa la rabaa inuu ku shaqeeyo inuu u dhiso qaab shaqo oo shiftiyada u qaybiyo oo kii xogaa liito oo kan hala soo hormariyo oo kii yani xogaa cudurdaar leh hooyada jiranaaya kii yiraahda saacada hooyadiisa oo jiran tahay ama hooyadiisa ay tahay waajib ay tahay inuu oo ka warqabo la siiyo oo hadhow saacada kale looga magto saas oo kale in qofka loo sameeyo marka doorka qofka supervisor-ka ah waxaan leenahay waxa waaye waa qof macallin ah macallin wala yaqaan Soomaa macallin waa qofka horjoogaha ah ahi waa macallin horta ku ka macallin يعني وحبرة معنا وترينر
يعني يسن ديدكوغل waa horumariye qofka shaqaalaha ah wuu horumariyaa wuxuu ka horumariyaa information ko hay wuxuu ka horumariyaa inuu warbixin soo yiraahdo hay iska ilaali meeshaas waa laga soo gali karaa wuxuu ka horumariyaa waxbarashada meeshaas computerka si fiican iskaga baro waxyaalahaas oo dhan la taliye qofka shaqaalaha ah in la taliso laga rabo hadaas u raasata oo akra taliso work dhan si shaqada oo ku qabalaha oo u fudud oo simple ah hage waa yahay hage qof wax haga oo dadka haga iyo dhise intaas waxa la rabaa inuu ahaado qofka supervisor-ka ah. Assalamu alaykum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.